hadduu muuqaalkan kusoo gaaro subscribe-ka ii saar gambalaalkana furo saas kula socona like-tana hayala bakhiilin waa mahadsantihiin walaalayaal maslaxa shala markii la soo gelinayo durdur media waxa ay ahayd durdur media inay kor u qaado laakiin maanta durdur media iyo maslaxo waxa saameyn batay maslaxo maadaama ay saameyn badatay maslaxo oo qof caan ah noqotay dadkoo dhan ay wada yaqaaniin tiktok ay bilowdayna waxa uu gaaray 300 iyo wax ka badan tiktok in laga qaato in lala dagaalo in gabadha oo lagu sameeyo waxyaabo aan afka u fiicneen waxaasoo dhan waxa sababaya waxay tahay maadaama ay ka saameyn badatay durdur media waxaa la rabay in hoos loo celiyo waa ay diiday sida daraadeed dadaa ku amray in ay la dagaalaan dagaalkaas la kiciyo si iida xataa loogu hanjabo loo dhaho haddii aad waxaad wada joojin weyso waa lagu furaa aan hadda qof magaciisa inaan sheega ma doonayo laakiin haddii waddadaas ay kusii socdaan caddeemo saxna waan keeni doonaa oo muuqaala hortiina aan keeni doono hadallo qaar aan hortiina keeni doonaa oo gabadhaas masaakiinta in looga gordaray diinta nabi maxamed oo sheegaysa naagta in la dilo feeraha laga jikeeyo oo la feero diinta sheegaysa maxay tahay diin sheegaysa hadee taa aayad sheegaysa dee jirta ii keena waa u laabanayaan catoosh aayad ii keena waa igu dil maxay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa in salaam ummadda Soomaali meel kasta aad joogtiin inta afkayga fahmayso Ramadaan mubaarak ilaahay weyn waaxidka soonki salaada naga aqbalo ilaahay oo ina soo hanuun dhamaanteen ilaahay social media wax ka socdo banaankaas banka camal dhijin naga mari wallahi bilow ii goysan bila banka camal ma garanaya ku baa mamadaas wax ka maqli jiraan ku dhaa mooyna ka maqli jiraan marka ani waa Fartaayl Sheekh tanaalka daawanaysiin waa Fartaayl Sheekh ku soo dhawaada challenge maxay ahayd challenge banafta afkan qadab challenge ma ku washo wallahi billahi reaction aan ka bixinayna kusoo dhawaada maslaxa iyo catoosh yare wallahi adduunka waxaan ku dhayaa gabadhan ma garanayo ma ayada khaldan ma isaga khaldan allahu a'lam markii asaga waxada ku ama asaga hadlayo ma arkin ilaahay amarkiis ayada un baa hadlaysa oo caytamaysa walaalahay maslaxa videoga dul calaq soo gaaro walaalahay cayd iska daa jararta aldees way urayaan kan waa kii kala aqoonsa salaada dooratay adaa maxay ahayd xabadka u qalaacanaysa haddaad guursateen marba ma fiicna ku dhaa marba haddaa qof isguursatin ninkaas shaysa urd ibraahim ku tilmaamayso iyo kaakida aad ku hayso waa ninka shalay ag joogtay dadka waa isku xumadaan waa la kala tagaa laakiin caydiya waxaa ma fiicno isaga kuma soo caynaya hadduu ku diray dadka lifeka arkayana ma branka ma haddii to allahu aclam ani ma garanayo ilaahay weyna waaxidka yaa naga og laakiin walaahi macaay iska waxaas ma fiicno qoomiyad dhan dhigaysan oo jarir weyn oo dhan ba afka la gashay oo caayaysa waan rabadaan buuqay wax ma fiicno dadku ay soo yihiin dadka dambaajinin gabar yar baa tahay hadday runtaa hadii kale ma ogin laakiin ilaahay qalbigaaga iyo qulubtaada hadajiyo waxaan iska dhaaf muuqaaladan isu dadin doonaa inaan kusii dheeraada ma rabi muuqaalkan muuqaal leeg intaan ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaah